halkan waxaan ka soo jeedinaynaa baaq oo odayaashu iga horreeyeen iyagaana dhammaystireeba oo waxba kama harsanayn oo qabyo waxba kama ahayn intaa ka hadhay un baan raacinaynaa intaasina waxay tahay baaqa guud oo ummadda Soomaaliyeed ama wixii muslima oo dhibi haysataba halka waxaan uga ducaynaynaa in Ilaahay dhibta ka saaro dhib colaadeed haday tahay wax ka xun ma jiraan waxaana taagan waa dhib colaadeed oo meel kasta ka taagan adduunyada dhan bay ka taagan tahay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa meeshii colaad ka jirtaba in colaadda Ilaahay ka damiyo colaadana la joojiyo laguna bedelo nabadgelyo meelaha la taabtay oo ay ka mid tahay oo horeysay hadda dhibtu ka jirto oo ka bilaabantay waa degmada Sheerbi dad baa ku dhintay wixii ku dhintana Ilaahay ha u naxariiso wixii dhaawacmayna Ilaahay ha boodhayo iyadana waxaan u rajaynaynaa in nabadgelyo lagu soo dabaalo arrimaheeda oo wixii wax garada iyo wixii waayeelaba ay ka qaab qaataan meel ay joogaanba nabadgelyada baaqeedana halka uga jeedinaynaa tan labaad Garowe caasimada Garowe iyo shaqooyin baa laga sheegayaa shaqooyinka ka jirana iyadana waxaan leenahay in la joojiyo wixii xabada waxana lagu dhameeyo wixii wada hadala isafgarad baa wax kasta ku fiican yihiin dawladnimadu waa isafgarad nabaddu waa isafgarad wax walba waxay ku dhamaadaan isafgarad iyo isqancin iyo wada hadal baa wax kasta ku fiican yihiin laakiin colaad waxba kuma dhamaadaan waxbana kuma hagaagaan marka iyadana waxaan uga digaynaa oo baaq u soo jeedinaynaa dadka Garowe ku nool cid kasta baa ahaatee in nabadgelyo lagu soo dabaalo isafgarad iyo ismaatina loogu baaqo la isugu yimaado lagu dhameeyo wixii jiraba intaas aan baaqayga ku soo koobaynaa dadka muslimiinta oo meel kasta ku dhibaataysanna Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in Ilaahay ka dulqaado wixii kurbiga oo haysta colaadahana nabad Ilaahay ugu bedelo iyo wixii bukana Ilaahay caafiyo wixii ku dhaawacmay oo dhibaato ka soo gaadhayna Ilaahay caafiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa meel kasta ay joogaan oo ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo degmada baaq aan ku qabanayna iyadana aad baan ugu mahadnaqaynaa oo ilaa xalay aan martida u ahayn iyagana nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar baan ugu ducaynaynaa. Assalaamu calaykum.